Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhaqankaab. Waa sheekadii Cali Baaba iyo 40kii tuug qaybteedii labaad. Nimankii tuugada ahaa markii ay dileen Cali Baaba walaalkii oo ahaa Caamir, waxaa la waayay Caamir. Xaaskii Caamir waxay u timi Cali Baaba waxaana u sheegtay in ilaa hadda lala yahay walaalkii Caamir. Cali Baaba isla markii waxa uu fahmay inuu Caamir ahaa nin aad u hanti jecel oo uu ku noqday godkii dahabka ahaa oo lagu dilay halkaa. Cali Baaba waxa uu soo kaxaystay dameerkiisii waxa aanu ku soo noqday hoggii dahabka. Markii uu yimi hogga waxa uu arkay labadii faras ee Caamir oo ku hor xidhan hogga. Isla markiiba waxa uu fahmay in halkaa lagu dilay walaalkii. Cali Baaba waxa uu ku soo noqday xaafadiisii waxaanu u sheegay in la dilay walaalkii Caamir. Cali Baaba markii uu yimi xaafadii waxa uu u sheegay qisadii dhacday iyo xaggii lagu dilay walaalkii Caamir. Xaaskii Caamir waxa uu u sheegay inay iyaga iskala noolaan karto, sidii ayaa isaga noolaayeen saddexdooduba. Cali Baaba maalin kasta waxa uu kaxayn jiray dameerka inta uu ku raro dahabka. Waxa uu geyn jiray tuulada oo uu ka soo iibin jiray. Tuuladii waxa uu ka dhistay guri weyn oo qasri ah. Halkaas ayaa ay u guureen oo ay ku noolaayeen saddexdooduba. Hase ahaatee kamay hadhin nimankii tuugada ahaa. Nimankii tuugada ahaa waxa ay fahmeen in dahabkoodii qayb dhani ay maqan tahay. Waxa ay soo dirteen nin basaasa. Hoggaamiyihii waxa uu ku yidhi waxaad soo baadhaa nin faqiir ahaa oo iminka taajir noqday. Ninkii basaaska ahaa waxa uu fahmay Cali Baaba inuu markii hore faqiir ahaa iminkana uu noqday taajir oo guryihiisa iyo hantidiisuba ay cusub yihiin. Waxa uu fahmay inuu ninkani qaatay dahabkoodii. Waxa uu yimi gurigii Cali Baaba. Waxa uu ku dhejiyey calaamad madow oo karoos ah si ay ugu gartaan oo ay caawa ugu soo duulaan. Xaaskii Cali Baaba oo dibadda u soo doontay adeeg waxa ay aragtay calaamadan lagu dhejiyey albaabka gurigooda. Isla markiiba waxa ay ka masaxday calaamadii. Ninkii basaaska ahaa waxa uu tegey hoggaamiyihii iyo kooxdiisii waxa uu sheegay inuu gurigii soo mariyey calaamad ay ku garanayaan. Isla habeenkii nimankii tuugada ahaa waxa ay duulimaad ku soo qaadeen gurigii iyaga oo ballantoodu tahay guriga calaamadda leh waxa aynu ugu dhex tagno aynu gurta ka wada jarno. Nimanka ayaa haysta hantideennii. Markii ay yimaadeen meeshii waxa ay waayeen guri leh calaamadii, waayo calaamadii waa laga masaxay. Sidaa kuma hadhin ninkii basaaska ahaa waxa uu keenay maskax kale oo uu soo qaban karo Cali Baaba. Waxa uu yimi Cali Baaba waxa uu sheegay inuu yahay nin ganacsada ah oo dharka ka keena wadamo kale. Waxa uu sheegay inuu sido dhar fara badan oo uu doonayo inuu kaga beddesho dahab loogu soo sheegay inuu hayo Cali Baaba. Cali Baaba aad ayaa u soo dhaweeyey waxa uu ku marti qaaday gurigiisa. Halkaas ayaana uu ku casuumay. Ninkii tuugada ahaa waxa uu ku soo xareeyey gurigii alaabtii uu siday. Alaabtana waxa ku jiray nimankii tuugada ahaa. Ninkii markii la casuumay oo loo keenay cashadii, xaaskii Cali Baaba oo ahayd gabadh aad u caqli badan ayaa waxa ay istiri waxaad soo eegtaa waxa uu ninkan sido. Markii ay tagtay meeshii waxa ay ka maqashay hadal leh goorma ayaynu soo baxnaa. Waxay ogaatay inay meesha ku jiraan dad. Isla markiiba waxa ay karkarisay saliid kulul. Mid kasta weelkii inta ay ka furtay furka ayaa ay ku shubtay saliiddii. Sidaa ayaa ay keligeed ku dishay 40kii tuugba. Tuuggii guriga lagu casuumay markii ay gaadhay xilligii ballantu ahayd inay nimankani ka soo baxaan weel ayaa uu qayliyey oo uu yidhi soo baxa oo kaalaya ila dila ninkan. Markii ay soo bixi waayeen nimankii waxa uu fahmay in nimankii la laayay oo lagu dilay halkii ay ku jireen. Shirqoolkoodina sidaa ku fashilmay. Sheekaduna ay tahay keligii. Markiiba aad ayaa u cararay oo u baxsaday. Halkaas ayaa ay ku guulaysteen qoyskii Cali Baaba. Fadlan subscribe saar si ay ku soo gaadhaan muuqaalada cusub.